goobtu waa magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Mareykanka. Sanadu waa 1985. Wax walba waxay u muuqdaan si caadi ah. Dadku waxay ku mashquulsan yihiin shaqooyinkooda maalinlaha ah. Wadooyinka waxaa ka buuxa gawaarida shacabka iyo dawladdu leedahay ee isaga gooshaya magaalooyinka waddanka si ay shaqooyinkooda u qabsadaan. Xafiisyada sirdoonka Mareykankuna waxay u muuqdaan kuwo ammaan ah oo shaqadii loogu talagalay qabsanaya. Laakiin gudaha xarunta CIA-da ee Mareykanka waxaa ka jira cabsi iyo sir aad u qoto dheer. Waxaa jira nin aamusan oo shaqadiisu tahay inuu ilaaliyo sirta qaranka ee loo igmado ilaalinteeda. Dadka intiisa badan waxay u arkaan ninkan nin caadi ah, sarkaal ka shaqeeya xafiiska FBI-da Mareykanka oo degan. Ninkan aan ka hadlaynaa magaciisu waa Robert Hanssen. Laakiin dhab ahaantii waxa uu khiyaamay waddankiisa in ka badan 20 sano. Waxa uu ahaa jaajuus u shaqeeya KGB-da Ruushka, qofkaas oo awood u leh inuu burburiyo sirta qaranka Mareykanka isagoo aanay cidina ogaan karin. Xitaa madaxda CIA-da ayaa aaminsanaa in Hanssen yahay xubin aamusan oo la isku halayn karo amba nin sirta qarankiisa ilaalinaya. Sirta uu siiyay Ruushku waxay bedeshay go'aano militari oo dhici lahaa, waxayna sababtay in jaajuusiin fara badan oo Mareykanku lahaa la laayo. Mowduuceena maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa ninkaas aynu warbixintiisa xagga hore kaga sheekaynay amba magaciisa xagga hore aan ku soo sheegnay. Ugu horreyn waxaynu ku bilaabi doonaa ninkani goormuu soo galay sirdoonka. Hanssen waxa uu ku biiray FBI-da Mareykanka sanadii 1976. Si degdeg ah ayuu u muujiyay xirfad sare sirdoonka ku saabsan xagga falalka argagixisada iyo KGB-da, la socodka xogaha qarsoon ee CIA-da iyo aqoon dhanka kombiyuutarada iyo sirdoonka ah. Markii uu ogaaday awoodda uu leeyahay, Hanssen waxa uu bilaabay inuu Ruush u gudbiyo magacyada jaajuusiinta Mareykanka, qorshayaasha sirta ah ee militari, goobaha hubka nukliyeerka Mareykanku yaallo. Maxaa ku sababay inuu khiyaamo dalkiisa? Hanssen ma khiyaanin Mareykanka sababo siyaasadeed, ma aha mid qaran dhalasho ah. Sababta dhabta waxay ahayd lacag iyo nolol raaxo leh. Waxa uu KGB-da u ka helay malaayiin dollar. Waxa uu iibiyay guryo qaaliya, baabuur iyo waxyaabo kale oo raaxo leh. Mushaharkiisa rasmiga ee FBI-da ma uusan ku fillayn nolol raaxo leh. Waxay markaa ka kaafiyeen inuu helo nolol qaaliya iyo raaxo abadi aan ahayn. Khatartii uu geystay ayaan isdul taagi doonaa. Waxaa la sheegay in falalka Hanssen ay sababeen in ka badan 10 jaajuus oo Mareykanka u shaqeynayay ayaa la qabtay oo la dilay. Qorshayaal sirdoon oo Mareykanku diyaarinayay ayaa fashilmay. Ruushku waxa uu helay xog ku filan si uu Mareykanka u beegsado oo waxyaabo badan ugu dhibaatay. Hanssen waxa uu ahaa nin aamusan, balse awooddiisa sirdoon ayaa u ogolaatay inuu bedelo geopolitics adduunka muddo 22 sano ah. Ugu dambeyntii, bal waxaynu mowduucan ku eegi doonaa sida loo qabtay. Sanadii 2001, Hanssen waa la qabtay kadib markii nidaamyo sir ah oo CIA-da iyo FBI-da ay ogaadeen isbedelada faylasha. Xog lagu kalsoonaan karo ayaa tustay in sirta qaranka si joogto ah ay u dhacaysay amba cidi bixinayso. Hanssen markii la qabtay ee la soo qabtay waxa uu qirtay dambiyadiisii oo dhan. Waxa lagu xukumay xabsi daayin aan cafis lahayn. Sheekadan maxaynu ka baran karnaa? Waxaynu ka baran karnaa in hal qof oo aamusan uu awood u leeyahay inuu burburiyo sirta dal dhan sida Mareykanka oo kale. Xitaa madaxda sirdoonka ugu waaweyn adduunku ma aysan ogaan karin. Sirdoonku ma aha filim, waa dagaal joogto ah. Hal qof oo xeel dheer ayaa qabsan kara mustaqbalka dal ama caalamka oo dhan. Hanssen ilaa maanta waxa uu ku jira xabsiga Mareykanka ku yaalla, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah jaajuusiintii ugu khatarta badnaa abid ee dunida lagu arkay. Ugu dambeyntii waxaynu ku soo gabagabeynaynaa in hal qof oo aamusan oo isqariya oo cidna afkiisa la wadaagi waaya amba xogtiisa aad u qariyay oo muddo dheer hawsha uu doono fushan karo, isagoo hataa ku dhex jira meelaha ugu halista badan ee sirdoonada adduunka u gaarsadaan. Intaan muuqaalka mid lamid ah ku kulmi doono, nabad iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.